وعن wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena waxa kamid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka 11aad ee dalka oo bilaabay qorshe jidgooyo loogu dhiganayo xukuumadda cusub oo soo dhisay ra'iisul wasaaraha dalka kadib markii ay ka soo muuqan waayeen saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya oo wada qorshe lagu sii deynaya askar ka amar qaadato oo ciidanka booliska gacanta ay ku dhigeen kadib howlgalo burcad lagula dagaalamayo oo laga sameeyay caasimadda madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug oo ku guul dareyso qorshe uu wada isla markaana looga hortagay ciidamo laga soo qaaday deegaanada maamulkiisa iyo dawladda Imaaraadka Carabta oo xoojinaysa xiriirkii kala dhaxeeya maamulka Jubbaland xilli ballanqaadkii ugu weynaa loo sameeyay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imikii aadna u diyaar garooba daawashada iyagii oo inta ka dhameystiran waa 6 bisha 7 sanada 2022 hadii ay taa markii kuugu horeysay oo soo booqatay channelkeena haylaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay ku soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku share gareynaya baraha bulshada inagoo ka dheeraanayna wax walba dalkeena dib u celin kara aynu ku bilownay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda Soomaaliya ayaa bilaabay qorshe jidgooyo ay ugu dhiganayaan xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xamza sida aan ku heleyna xogo soo baxay waxa bilowday qorshe abaabul ay wadaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka 11aad taas oo ah mid jidgooyo loogu dhiganayo xukuumadda uu dhisay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka xildhibaanadan oo tir ahaan gaaray dhowr iyo 10 xildhibaan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ka carooday in ay waayaan xilal ay ka raadinayeen xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre xildhibaanadan ayaa kol horeeto waxay isku dayeen inay ka mid noqdaan xukuumadda waxaana codsiyo kala duwan ay u direen ra'iisul wasaaraha inkastoo codsiyadaas dhammaan albaabada uu ka xirtay ra'iisul wasaaruhu markii ay ogaadeen in si cad loogu soo diiday isla markaana xukuumaddaas aysan ka mid noqonin ayay bilaabeen abaabulka qorshe ay doonayaan inay jidgooyo ugu dhigtaan xukuumadda cusub oo uu soo dhisay ra'iisul wasaaruhu marka la horgeeyay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dalka xukuumadda uu soo dhisay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayay doonayaan inay soo diidaan isla markaana wax ka bedel ay dalbadaan xildhibaanadaas ayaa wada qorshe ay kaga dhaadhicinayaan saaxiibadooda kale ee ku jira baarlamaanka 11aad ee dalka in ay jidgooyo wadajir u dhigtaan xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaaruhu uu dhisayo qaar ka mid ah xildhibaanadan ayaa la sheegay abaabulka wada inay ka soo kala jeedaan Hirshabeelle iyo Galmudug sidoo kalena waxaa jira xildhibaano ka soo jeeda Puntland oo iyagana wada abaabulkaas la mid ah caqabada waaweyn ay la kulmaysaa xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre uu ku howlayaa in uu soo dhiso maadaama xilligan ay jiraan xildhibaano loo diiday boosas ay raadinayaan kuwaas oo noqonaya caqabada koowaad Xamza Cabdi Barre ayaa qaaday tallaabo taas oo ay ka caroodeen xildhibaano iyo siyaasiyiin isla markaana ku aadan in xukuumaddiisa inta badan ay noqonayaan wasiiradeeda dad ku cusub saaxadda siyaasadda saraakiil ka mid ah ciidanka militariga Soomaaliya ayaa bilaabay qorshe ay ku sii deynayaan askar ka tirsan ciidanka oo ku xiran Muqdisho howlgalo xiriira oo saacadii aanu ka soo gudubnay laga sameeyay caasimadda ayaa sababay in gacanta lagu dhigo kooxo burcad isla markaana dhac u geysanaya dad shacaba dadka la soo qabtay oo qaarkood watay dareeska ciidanka militariga Soomaaliya ayaa la sheegay in qaar ka mid ah ay ahaayeen askar kuwaas oo xilligan ku xiran saldhigyada qaar ee degmooyinka gobolka saraakiil ka mid ah ciidanka militariga Soomaaliya isla markaana askar iyaga ka amar qaatay gacanta lagu soo dhigay iyagoo wax dhacaya ayaa la sheegay inay wadaan qorshe lagu sii deynayo ilaa iyo 7 askari ayaa la sheegay in laga soo qabtay degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir kuwaas oo howlgalo ay ka sameeyeen ciidanka booliska iyo nabad sugidda askartaan hadda la doonayay in la sii daayo ayaa xilliga la qabanayay waxay ku howlanaayeen dhac ay u geysanayeen dad shacab waxaana u suurta gashay ciidanka booliska iyo nabad sugidda in ay soo qabtaan waxaa lagu xiray degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir askartaan iyo kooxo burcada kuwaas oo siyaabo kala duwan looga soo qabtay caasimadda waxaana xilligan socdo qorshe lagu sii deynayo askartaas saraakiisha ayaa sida aan xogaa ku helayna waxay la xiriireen saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka booliska waxayna ka dalbadeen in markaa loo sii daayo askarta isla markaana mar dambe aysan dhici doonin saraakiil ka mid ah ciidanka militariga oo askartooda gacanta lagu soo dhigay qaar ka mid ah waxay la xiriireen ciidanka booliska waxayna kala hadleen saraakiishooda in loo sii daayo askarta isla markaana falkan oo kale aysan dhicin mar dambe xogaha qaar ee aanu helayna ayaa sheegay in saraakiisha qaar ee ciidanka militariga isla markaana askar daacad u ahayd gacanta lagu dhiga ayaa la xiriiray ciidamo ka mid ah booliiska saraakiishooda sida aan ku helayna xogaha qaar askarta la soo qabtay saraakiisha ay ka amar qaataan ee ka tirsan ciidanka militariga ayaa la sheegay inay la xiriireen saraakiil boolis iyagoo ka dalbaday in loo sii daayo askartaas wararka qaar ayaa tilmaamay in saraakiisha booliiska ay iska dhigatireen isla markaana ay ka biidiideen in la sii daayay ciidankan isla markaana ay doonayaan in sharciga la hor keeno inta badan magaalada Muqdisho ayaa dhac waxa ka geystay rag ku labisan dareeska ciidanka dawladda kuwaas oo iskugu jira kuwa askar iyo sidoo kale kuwa iska soo qaatay qoryaha iyo dareeska ciidanka
saraakiisha ciidamada booliiska ayaa diray digniin adag oo ku aadan in laga hortegi doono kooxaha burcadda isla markaana gacanta lagu soo dhigi doono waxayna ku dhawaaqeen howlgal culus oo ka dhana burcadda howlgalkii ciidanka ay ku dhawaaqeen ayaa xilligan waxa uu noqday mid suurtagalay isla markaana wax badan ka bedelay amnigii caasimadda waxaana saldhigyada qaar lagu hayaa xilligan ciidamo militariya oo dhac geysanayay dowladda imaaraadka carabta ayaa xoojinaysa xiriirkii kala dhexeeya maamulka Jubbaland sida aan ku helayno xogo hoose oo soo baxaya dowladda imaaraadka carabta ayaa bilowday qorshe lagu sii xoojinayo xiriirka kala dhexeeya dowlad goboleedka Jubbaland dowladda imaaraadka carabta ayaa wixii ka dambeeyay sanadii 2018 markii ay isqabteen dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay xiriir toos ah la yeelatay maamulada Puntland iyo Jubbaland waqtigaas wixii ka dambeeyay waxay maamuleysay isla markaana gacanta ay ku haysay dekedaha maamulada Puntland iyo Jubbaland isla markaana ay doonaysay in mashaariic kala duwan ay ka hirgelisay deegaanadooda waayihii dambe ayaa waxaa hoos u dhacay xiriirkii ka dhexeeya dowladda imaaraadka carabta iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland waxaana dadka qaar ay ku macneeyeen in uu meesha ka sii baxayo madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana hoggaan cusub dalka uu yeeshay ayaa dowladda imaaraadka carabta mar kale waxay xoojinaysaa xiriirka ay la lahayd maamulka Jubbaland qorshahan ayaa waxa uu noqday mid siyaabo kala duwan loo macneeyo oo ku aadan in maamulka Jubbaland uu yahay mid heshiiska uu la galay dowladda imaaraadka carabta aanan soo marin dowladda dhexe ee dalka ka jirta markii hore dowladda imaaraadka carabta ayaa marmarsiyay waxay kaga dhigaysay xiriirka ay la yeelatay maamulka Jubbaland dagaalka kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Farmaajo xilligan imaaraadka carabta iyo dowladda dhexe ee dalka ka jirta isla markaana uu hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo aad iskugu wanaagsan ayay haddana xoojinaysaa xiriirkii kala dhexeeya maamulka Jubbaland dowladda imaaraadka carabta dhowr shay ayay u ballan qaaday maamulka Jubbaland oo kala ah qalabaynta ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale gawaari dagaal iyo hub in ay siin doonto maamulka Jubbaland sidoo kale dowladda imaaraadka carabta ayaa malaayiin dollar u ballan qaaday hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe imaaraadka carabta ayaa xilligan saameyn muuqda waxa uu ku leeyahay Soomaaliya oo idil waxaana xilligan xiriir wanaagsan uu kala dhexeeya dowladda dalka ka jirta oo horkacaya madaxweyne Xasan Sheekh ugu dambeynna madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka walaacsan ciidamo laga soo qaaday deegaanada maamulkiisa dibna loogu soo celinayo caasimadda sida ay noo xaqiijinayaan ilo xogogaal ah oo aad ugu dhow xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug waxaa socdo qorshe dowladda Soomaaliya ay ciidamo kaga soo qaadayda deegaanada maamulkaas sida ay noo xaqiijinayaan ilo xogogaal ah oo aad ugu dhow xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug waxaa bilowday qorshe ciidamo looga soo qaadayo deegaanadaas dibna loogu soo celinayo caasimadda ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka soo qaadayda deegaanada maamulka Galmudug ayaa kala ah ciidanka sida gaarka u tababaran ee Gorgor iyo sidoo kale ciidanka Haramcad kuwaas oo la geeyay dhamaadkii sanadkii hore ciidamadan ayaa ah kuwa ka qayb qaatay dagaalkii Ahlussunna looga saaray degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaana xilligan dowladda Soomaaliya ay qorsheynaysaa in tirada ciidankaas la dhimo ciidamadan ayaa ah tir ahaan ciidamo aad u badan isla markaana loogu talagalay inay la dagaalamaan xoogagii Ahlussunna ee ka dagaalgalayay magaalooyinka Gurceel iyo sidoo kale duleedka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ciidankan oo tir ahaan aad u badan ayaa loogu talagalay inay la dagaalamaan xoogagii Ahlussunna ee ku dagaalamayay degmada Gurceel sidoo kalena fariisinta ka samaysay deegaanka Dhuusamareeb duleedka ka ah ee Bohol dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidankan la sheegay in xilligan ay u baahatay isla markaana deegaano kale oo loo qaaday ay jirto taas ayaana keentay in xilligan la dhimo tirada ciidanka jooga deegaanada maamulka Galmudug hogaamiyaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ka walaacsan xaaladda deegaanada Galmudug sida ay noqon doonto maadaama xoogaga Ahlussunna ay soo laba kaclayn karaan haddii ciidankaas la daabulo waxaa jiray qorshayaal maalmihii taga uu wada madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ku aadan in la yareeyo ciidanka laakiin tirada dowladda ay rabto laga sii yareeyo waxaa jiray qorshayaal maalmihii dambe uu wada Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor hogaamiyaha dowlad goboleedka Galmudug kaas oo ahaa in dowladda Soomaaliya tirada ay rabto wax laga bedelo isla markaana tiro kooban oo kaliya ay qaadato dowladdu waxa uu soo bandhigay halista maamulkiisa ay ku yihiin culumaa u diinkii hore ee Ahlussunna isla markaana ka arrimin jiray magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb halkaas oo xilligan ay gacanta ku hayso maamulka Galmudug dowladda federaalka Soomaaliya ilaa iyo hadda wax ay ka bedeshay go'aankeeda ma jirto waxaana xilligan la sugayaa kaliya in ay bilaabato daabulka ciidankaas oo qaarkood lagu soo celin doono magaalada Muqdisho kadibna loo qaadi doono gobolada qaar ee dalka intaasina daawadayaal waxaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka waadna ku maasantihiin la socodkiina iyo la saanqaadkiina wixii aragti oo noogu raaba qaybta hoose ee commentiga